بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد درسنا ودرسي سديدات كميدا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعنقصر حجرني بابك شيخ ولهاي باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله baabka masaa-isha laga qaadanayo ayaan marka ku istaagnay uu darsigeena maanta uu ka bilaabanaya insha allahu tacaala sheekh wuxuu yidhi raximah allahu tacaala fiihi masaa'il baabka masaa'il baa ku sugan masalada koobaad fiihi waxaa ku sugan baabka akbaru lmasaa'il masaa-isha tii ugu weyneed wa aham waa ugu muhiimsaneed masaa-isha lasoo sheega o dhan tii ugu weyneed xaggana ugu muhiimsaneed ayaa ku sugan wahiya masaladana waxaa weeye tafsiiru tawxiid tawxiidka oo la fasiro iyo wa tafsiiru shahaadati shahaadada tafsiirkeeda wa bayanahaa alla wuu caddeeyey subxaana wa tacala iyo suubanahaba calayhi salaatu wasalaam biumuurin arrima ayuu ku caddeeyey waadixatin iska cad qaabab kala duwan ayay nusuusta u cabirtay u tilmaantay oon soo marnay qaababkaas ayuu tilmaamaa marka wa bayanahaa alla wuu caddeey iyo nebigaba calayhi salaatu wasalaam biumuurin waadixatin arrimo cadcad ayuu ku caddeeyey minhaa waxaaba ka mid e waxyaalaha lagu caddeeyey towxiidka tafsiirkiisa iyo tafsiirka shahaadatu an laa ilaha illa allah aayat lisraa aayadda israa on soo marnay waaya aayat israa waa ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaquunadaas aayadda ayuu tilmaamaya bayana alla wuu caddeeyey fiiha aayadda dhexdeed alradda radin ayuu ku caddeeyey cala almushrikiina mushrikiinta la radiyo aladiina kuwaasoo yadcuuna baryayaan alsaalixiina saalixiinta baryayaan wa fiiha aayadda dhexdeed ayuu ahaaday bayaanu caddayn anna haada kani ee laga soo sheekeeyey huwa shirku alakbaru inuu yahay waxaa kaloo aayadda dhexdeeda lagu caddeey baryadaas ay baryayeen saalixiinta inay tahay shirku lakbar inay tahay wa minhaa waxaa ka mid a arrimaha lagu caddeeyey aayatu lbaraa'a aayaddii baraa'a ayaa ka mid ah bayana wuu caddeeyey alla fiiha dhexdeeda anna ahla alkitaabi nimanka ahlu kitaabka ah yahuudi nasaara ittakhaduu inay samaysteen axbaarahum culimmadoodii wa ruhbaanahum cubaadoodii arbaaban inay ka dhigteen oy ka samaysteen ilaahya min duuni illahi alla ka soo kow wa bayana wuxuu caddeeyey alla annahum ayagu lam yu'maruu inaan la farin ilaa bian yacbuduu inay caabudaan moo ilaahan waaxidan alla oo keli ah inay caabudaan mooyaane wax kale inaan la farin bo alla uu bayaani aayadda qaybteeda dambe ayuu camaraya wamaa umiruu ila liyacbuduu ilaahan waaxida maca anna tafsiiraha ayadoo tafsiirkeedu kelimatu laa ilaha illa tafsiirkeeda alladii kaasoo laa ishkaala fiihi wax ishkaal iyo wax mugdi ah iyo aynan ku sugnayn daacatu lculamaai culimadu macnaha cafwan maca ana tafsiiraha dhe aayadda tafsiirkeeda wey tafsiirka aayadda laga wada kelimatu laa ilaha illa ma maca ana tafsiiraha aayadda tafsiirkeeda alladii kaasoo laa ishkaala fiihi wax ishkaal iyo wax mugdi aadna ku sugnayn daacatu lculamaa culimada daaca oo la adeeco inay tahay iyo walcubaadi cubaad oo la adeeco fi lmacsiyati macsiya lagu adeeco laa ducaahum baryadooda ma aha iyaahum ayaga loo baryo oo loo yeerto aayadda tafsiirkeedu ay ka hadlaysa waxaa weeye culimmada iyo cubaadda iyo wixii lamid ah oo macsiya lagu adeeco bay ka hadlaysa ayadoo sidaa tahay baa gadaal waxaa laga raacay wamaa umiruu ila liyacbuduu ilaahan waaxidan ayaa gadaal laga raacay waxay kutusaysaa marka in ay macnaha waxaa weeye haddii la adeeco cubaadda iyo madaxda iyo culimmada iyo macsiya haddii lagu adeeco inay arrintaas shirki tahay cibaadana ay tahay cibaada inay tahay kadibna ay ka dhalanayso cibaadadu ilaah keyrkiis loo leexiy waxaa loo yaqaanaa shirku daaca loo yaqaanaa shirku daaca adeecitaankii oo alla uu lahaa oo cid kale la wadaajiyo wey wuxuuna ka tirsan yahay min towxiid arububiya ayuu ka tirsan yahay waay wa minhaa waxaa ka mid e qaababka lagu caddeeyey qowlu khaliil calayhi salaam lilkufaari gaaladu uu ku yidhi ibraahim inanii anigu baraa'un beri baan ka ah mimaa kii tacbuduuna aad caabudaysaan kii aad caabudaysaan xaggiis beri baan ka ah ila aladii allihii mo fadaranii
iyo abuurid bilaabay fastathnaa wuxuu kasoo istithnoodo kasoo reebay min almacbuudiina kuwa la caabuday rabbahu rabbigiisuu kasoo reebay markuu inta ayagoo dhan uu beri ka noqday buu rabbi kasoo reebay subxaanahu wa tacaala waay arrintaas marka waxay kutusinaysaa min nafyin wa ihbaatin inaan laga maarmaynin inaan kalimatu laa ilaha illa allah aan looga maarmaynin nafy labadaas rukni oo hore dhowr jeer soo sheegna oo ruknu ihbaat iyo waa ruknu nafyi labadaas inaan laga maarmayn inanii baraa'u mima tacbuduun maxay tahay laa ilaaha macnaheedu wey ila aladii fataranii maxay tahay ila allahu wey wadakara subxaanahu watacaala alla wuxuu sheegay ana haadihi albaraa'ata waayahay ka bari noqoshadaas iyo wa haadihi almuwaalaat muwaalaadkaas iyo xiriirintaas gacalka dhigashadaas hiya tafsiiru shahaadati laa ilaaha ila allah inay tahay kalimatu laa ilaha illa allah tafsiirka inay tahay waay ka bari noqoshadaas uu ka bari noqday iyo gooynta u gooy muwaalaadkooda iyo gacalka dhigashadooda u gooy aaba macnihi laa ilaha illa allah faqaala alle wuxuu yidhi wajacalahaa wuxuu yeelay nebi ibraahim baraa'adaas iyo muwaalaadkaas kalimatan ayuu ka dhigay baaqiyatan baaqi ah fii caqibihi caruurtiisa dhexdooda lacallahum waxay mudihin yarjicuuna inay laabtaan marka wa minha waxaa ka mid a qaabka alle ku cadiyey subxana wa tacaala aayat lbaqara ka mid ah oo fil kufaari gaalada dhexdooda ahaatay ku soo aroortay ama ku saabsaneed aladiina gaaladaasoo qaala allahu fiihim alle uu ka yidhi wamaa hum ma ayna ahanin bikhaarijiina kuwaa ka baxay min annaari naarta ama lagaba saarayaba waay inay marka ku gaaloobeen ayuu arrinta alle ku tilmaamay subxana wa tacaala waxa waa min annaasi man yatakhidu min duuni illahi aayaddan soo marnay iyo aayadaha ku xigo ayuu tilmaamaya waxay marka kuwa lagu gaalaysiin waxaa shirkulmaxaba loo yaqaana maxaa yeelay wa min annaasi man yacbudu allaha wa min annaasi man yatakhidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xub illah sidai alle u jecel yihiin si lamida bay u jecel yihin baa layidhi marka waxay ku sugnaayeen waxaa layahay shirku almaxaba baa loo yaqaana dakara alle wuxuu sheegay annahum ayagu yuxibuuna inay jecel yihiin andaadahum ilaah ku sheego waxyaalaha alle ay garab dhigeen oy alla u ekaysiiyeen oo wixii xaq alla ulahay ay siiyeen inay jeclaayeen buu alla sheegay ka xubbillaahi siday allaba u jecel yihiin fadalla arrinka wuxuu ku tusiyey calaa annahum ayagu yuxibuuna allah alle inay jecel yihiin xubban jeceyl cadiiman ee wedweyn aad u weyn allana way jeclaayeen si aad u weyn bay alla u jeclaayeen waxaa laga qaatay aayadda oo andaadooda way jeclaayaan bay liyihin siday alla u jecel yihiin waaya marka alla wuxuu sheegay subxaana wa tacaala in andaadooda ay jeclaayeen siday alla u jecel yihiin bay u jeclaayeen labadoodii marka ay isla jeclaayeen alla iyo wixii ku garab wadeenba arrintan waxay ku tusayso marka alla inay aad u jeclaayeen walam yudkhilhum fi lislaam islaamnimadana ma ayna gelinin jaceylka alle u hayeen waayahay maadaama ay ku kale ka garab wadeen oo shirkulmaxaba ay sameeyeen kaa islaamnimadii kuma ayna soo gelin fa kayfa balka waran buu ku yidhi sheekhu ama fa kayfa xaalkiisuu noqonaya biman qof axabba jeclaaday annidda nidka jeclaaday midkuu alla garab dhigay oo alla ilaah ku sheega ah midkii jeclaaday akbara wax ka badan min xubbillahi ilahay jecelkiis balka warankaas xaalkiis muxuu noqonaa kuwa hadda waxaa la sheegay jeceelka alla u qabaan iyo midka andaadda u qabaan inay isku mid yihiin yuxibuunahum ka xubbillaah waaya balka waran midka alla ku sheega oo alla garab dhigay midka jeceelkiisa uu ka badan yahay uu ka badan yahay mar walba midku alla u qabo wa kayfa biman qofna xaalkiisa balka waran lam yuxiba an jeclaanin ila nidka mooyaane waxdaw keligiis oo walam yuxib laaha allana aama jeclaanin ka waran waaya marka wuxuu ku leeyahay haddii qofkii alla subxaanahu watacaala jeclaaday cid kalena la jeclaaday oo ku garab waday haddii xaalkiisu sidaa noqday oo la yidhi wamaa hum bikhaarijiina min annaari la yidhi kii alla wuxuu alla garab dhigay jeceelkiisa uu 90% yahay jeceelka allana subxaana wa tacaala 10% u yahay ka waran waxaa kalood ka waranta xaalkiis muxuu kul u yahay qofkii alla subxaana wa tacaala aan jeclaanin ee wuxuu ku garab wado un bis jecel warkooda ma jiro waa kuwaas marka wa minha waxaa ka mid a qaabka lagu cadeey wa minha qowluhu sal ll slam ka mid man qaala ninkii yidha laa ilaha illa allah wa kafara ku gaalo bima yucbadu wax la caabuda min duuni alla ka sokow xaruma maaluhu wa damuhu dhiiggiis iyo macnaha iyo maalkiisa xaaraame wa xisaabu cala allah xisaabtiisana allah saarantaho wixii intaa kadib uu la yimaado alla yahay subxaana wa tacaala ayaa ka xisaabinaya
واي وهذا وحوري شيخ رحمه الله تعالى من أعظم ما شيء كان وين واي ما قصو يحب يبين عدينا معنى لا إله إلا الله عدينا وحديث كان ووحى وين ومعنى لا إله إلا الله عدينا محيالي وحالي من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله سان هرب أصامرني قفك مسلم كاه إن دي جيسو حرام نقضه حولي سنة كاه حرام نقضه وحالو حري لبقى الريموت شيخ أبسي شرحي دون مركة كما هردعين فإنه حيري فإنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل التلفظ رواق كميل بها كلمة اللغو رواق عاصما كي إلالنا للدم ديقو والمال مالك مد إلالنا كما ديقو إن كلمة اللغو رواق كليت مجرد كذا كميل ديقو إيو مالك مد إلالنا أيو وقفك اللغو بدبادنا بل اسكو دافي ولا معرفة معناها معناها هذا أقرته مع لفظي هذا اللي جير كيسنا كميلين بق حتى هدي معناها هذا أقرته lafdigan uu ku dhawaaqano taana hataa lagama yeelin mid ilaalinayo dhiiggiisa iyo maalkiisa bal wuxuu yiri walal iqraar bidalika in arita ka marqaati kacan uu qirano lagama yeelin oo inta isku sii daro bal iska dhaaf wala kownahu ahaashidiisana lagama yeelin mid ilaalinay dhiigga iyo maalki la yad'u an u yeerinin illa allah alla mooyan wahdahu kaalu xaalu kaliyeed wahdahu xaal uu kaliyahay la shariika lahu wax la wadaagan ay jirin cibaadada waayahay بل اسكدافه لا يحرم ماله مال كيس ما حرام نقناي ودمه ديغيسنا ما حرام نقناي حتى يضيف الى قدره او اضافيه وسو انايو الى ذلك الكفر قال لمداس بما وحي وسو انايو يعبد العابد من دون الله إلهي سبحانه وتعالى سكوديس العابد حكوليه ان معناه وحويا لفظيا كليح لو دواقو ديغي مال ما الاليناي ان معناه كليح لا غرتو lafdigaana lagu dhawaaqdo ma ilaalinayo in la qiro hadii lagu sii daro maya hadii aan cid kale alla mu cid kale aan loo yeerin la caabudin mayo bal waxa laazim ah markii aad kalimadan qirto macnaheedana aad garato aan ku dhawaaqdo in hadana aad ku darto qaybtii nafigeed oo ah waayahay wa kafara bima yu'badu min dunillah bal la yahrumu maluhu ودمه حرام من نقول حتى يضيف إلى وإضافة وقدره إلى ذلك الكفر قال لماذا وايهاي أو كفرنا إلى قدره إلى ذلك الكفر كفر قاس إلى وإضافة وقدره بما يعبد أما حالديك حتى يضيف إلى وإضافة وقدره إلى ذلك كأن صاشقني الكفر وإضافة قال لهم وكقالوا باي بما يعبد وحي العابد من دون الله ألا كسكو وكاسدا سانا صحيح بل اسكداف لا يحرم حرام نقنا ماله مالكيسه ودمه ديغيسه حتى يضيف الى اضافه وقدره الى ذلك كان سو شيغني او ان معناها افكا كغا دواقو معناheedan uu garto qalbigan uu ka qiro ila uu idaafi uu ku daro al kufra inuu ku gaaloobid lagu gaalooba bima wixii yu'badu al abuda min dunillah alla ka soo koob inta marka waa inuu isku daro marka waa nafigi ithbaatka un waa fa in shakka hadii uu shikiyo shika ka galo أو مسمين توقف أو استهاجه وكي استهاج أرنتها نوع عاسة وياي أو إله ليس وحلمي ده لم يحرم ماله ودمه ولا دمه لم يحرم ماله مال كيس محارم نغنى ولا دمه دي جيسن محارم نغنى سوكير شيخ وأنا تفسير كحديثكم مفسرها يا شيخ يا وح اسمها فيا لها محاوسق نادوير من المسألة معنا ما أعظمها محاوين بني وأجلها محاوين بدني واسكمت أرمحا مسألة محانا وحاو محاو سقنا معنا وحيالها عجيبة مركا لا لياب وحلوها اللوي ويا له محاو سقنا من بيان عدينا ما أوضحه محا عدينا بنيسي محا عدان بنيسي وحجة محا بيان أيكو عفس وحجة محا حجة سقنا ما أقضعها محا أفحرد بنيسي للمنازع متك الدودة وحو leeyahay mas'alada ninka soo ku doodo oo macnaha waxa weeyaan inta hadda xadiik uu sheegay in ka duwan la yimaado waa mas'ala afjarayso oo macnaha waxa doonta ka goynayso oo xujadiisa dhan baabi'inaysa soo ka wada waayahay باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه أو دفعه ألقى أيام ما توديني هذا بالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه